dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ayaa waxay saaka si weyn isugu soo baxeen fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Daale Stadium halkaas oo lagu qabtay xuska maalinta 18 May oo ku beegan 25 guuradii gool isutaagga Somaliland waxaana munaasabaddan ka soo koob mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo gobolka Ceerigaabo ay dadweynaha kala soo qayb galeen wasiirada waxbarashada cadaaladda kalluumaysiga iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Somaliland ayaa waxa halkaas ciidamada qalabka sida ardayda laamaha dawladda iyo ururada kala duwan ee ka jira gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ay ku soo bandhigeen dowlad-tusyada iyo calaamadaha ama boorarka lagu muujinayo xuska maalintan 18 May waxaana fagaarahan garoonka kadib soo bandhigida dowlad-tusyada iyo salaan sharaf ciidamada mas'uuliyiintu halkaas kaga qaateen kadib halkaas waxa uu horey ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur dhammaan waxaan u mahadnaqayaa shacbiga reer Ceerigaabo shacbiga ku nool caasimadda siday xilka isaga saareen siday u dadaaleen siday u mintideen aad baan idinka mahadnaqayaa madax dhaqameedyada beelaha Sanaag iyo waxgaradka kale xildhibaano golaha deegaanka qurba joog iyo waliba aqoon-yahano iyaguna halkaas ka hadlaya si weyn uga sheekeeyay taariikhda iyo qiimaha maalintan 18 May iyo waliba marxaladihii kala duwan ee la soo marayba barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaas ka hadlay ayaa isagana hadaladiisa waxa kamid ahaa waxa kale oo aan aad ugu mahad celinayaa runtii oo isku dubaridkan iyo maalintan qiimaha weyn la ka soo shaqeeyay ugu horeyn waa gudidii qabaqaabada ee aan u magacaabay inay xuskan soo diyaar ugu dambeyntiina munaasabaddan waxa hadalka isaga dambeeyay soo gabagabeeyay wasiirka cadaaladda Axmed Cadare kalluumaysiga Cali Jaamac Buuradi waliba wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Dheere maanta waxaynu dabaaldegaynaa sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay gool sutaaga oo aan filayo dhalinyarta naga soo horjeedaa inaanay waqtigaa dhalaninba maalintani way nooga duwan tahay maalmaha daayartaan u sheeganaa taariikhdan ku qoraynaa waynu u sheegaynaa waa sii wadaynaa waa joogtaynaynaa waa horumarkeenna iyo nafteenna iyo mustaqbalkeenna weeyaan Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo Weyn News magaalada Ceerigaabo